السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa ixtiraamka. Ixtiraamku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dhisa xiriirka bulshada. Ixtiraamku waa dareenka iyo dhaqanka wanaagsan oo muujinaya ficnida iyo qadarinta qof leeyahay una hayo qof ama dad kale. Guud ahaan ixtiraamku waa marka dadka loola dhaqmo si edeb iyo anshax leh. Ixtiraamka ayaa ah mid ku weyn diinta Islaamka oo ah waxa lagu daydo waxa ugu wanaagsan. Wax qof weyn iyo mid yar baa laga doonayaa inuu ixtiraamo dadka kale si isagana loo ixtiraamo. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yiri, anaga naga mid ahan qofkii aan u naxariisan keena yar, sidoo kalena nagama mid ahan qofkii aan sharfin keena weyn. Xadiiskan waxa uu na tusinayaa qadarinta weyn ee diinta Islaamku ay siisay ixtiraamka bulshada dhexdeeda ah. yaa mudan in la ixtiraamo. Dhammaan bini'aadamku waxa ay mudan yihiin ixtiraam iyo qadarin weyn. Hase yeeshee waxaa jira dad si gaar ah u mudan in la ixtiraamo. Dadka mudan ixtiraamka waxaa ka mid ah waalidka, macalinka, culimada, dadka waaweyn, haweenka, madaxda dalka, caruurta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.